ayaa asxaabtayda janaalka subscribe saara like ku qabta siina jiida macnaha mid kale waxaad ogaatiin guusha aan gaari rabo wax yar ila joogayaan la iga fogaan gabadheedii maalintaas badbaamatii waa la dilay mandiirana walaal la'aan ayaa ku dhacday weliba asagoo aad ugu xumaa dilka walaashiisa markaas kadib gabadhii ku hartay xaafaddaas waxaa go'aan lagu gaaray in abtigeeda loo dhiibo oo waxbarasho magaalada loo geeyo boqorka wuxuu la welwelsanaa wiilkiisa gabadhana walaalkeeda ayay ka welwelsanayd laakiin asaga ma uusan soo laabanin akhbaar ayuu u soo diray wuxuuna ku yidhi dadna khiyaanaya ayaa jiro oo annaga dhiiggayna cabaaya ilaa iyo dadkaas aan ka soo saarana aniga guriga uma soo laabanayo ama qasriga agtiisaba ma imaanayo waan soo saarayaa dadkaas markaas ayaan soo laabanayaa walaashiisa aad ayay u welwelsanayd laakiin waxaa ka sii daran jalbarii ninka la dhahayo jalbarii intuu u adkaysan waayey ayuu wuxuu yimid wadaadkii asaga sixirka u samaynayey markaasaana waxaa la siiyey faraanti aad u awood badan waxaana la yidhi digaarkay ma xasuusataan faraantigii aan kuu sheegay awood walba ku soo showay jinni iyo jaana iskugu keenay hadda bax ku weerar tag ha cabsanin hortaa wax istaagaya ma jirta digaarkay faraantigaas waxaa la isugu keenay mucjisooyin fara badan waxaa loogu talagalay gabadha in lagu waalo dad badan meeshii way joogeen markii uu suntaas daadiyo waxaa macquula dadka kale inay gaarto laakiin ma aysan gaarina gabadha miir meeshaas ayaa ugu dambeeyey faraantigaas mucjisada heer wuxuu gaarsiiyey gabadha aabbaheeda inay ku xukunto xabsi daa'im markaasna arrintu waxay farihiisa gashay jalbariyo aad u fara hooyada ay aabbahaaga markuu dilay ninka danraaj la dhahayo haddana wuxuu u dhacay qoftii boqorradda ahayd micnahayga eeddadaada ninka ayuu ka dilay ninka markuu ka dilay xaamilay ahayd way dhashay cunuga ayada ay dhashay ayaa wuxuuba la noqday waraabo markaas ayuu yidhi awooddaada waxaad ku soo ceshan kartaa adigoo gebadhaada dishid ayadana warkii intay qaadatay sanadka ugu horreeya sixirka in uu hergelay ayaa la tusiyey waxaana ay samaysay run ahaantii gabadheeda ayada ay dhashay ayay sixirkeeda ku dabaqday way dishay sidaasna waxay ku noqotay qof aanan naxariis lahayn sheekadaasoo dhan waxaa ka dambeeyey ninka danraaj la dhahay iyo macallinkiisa run ahaantii marka ugu dambaysa wuxuu rabay danraaj danihiisa wuxuu ahaa gabadha eeddadaada inuu dilo oo asaga la wareego awoodda marka wiilkayga 7 sano oon weliba aan hakad lahayn ayay 7 gabdhood teeda ku jirto ay baabi'isay marka wiilkayga waa sanadkii 18aad xaaskaaga ayaa ku jirto haddii aad maanta badbaadi weyso wiilkaygiiow arrintan way isbeddelaysaa awooddeeda way beddelaysaa aad iyo aad ayay waxay u noqonaysaa shaydaan waa ku baryaa wiilkayga badbaadi